magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa laga daafuray mashruuc isugu jira indhafiiqis iyo daawooyinkaas ay ka faa'iideysan karaan dad badan oo ku nool magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Dad badan oo ku nool deegaanada Sool iyo Sanaag ayaa la rajeynayaa in ay ka faa'iideystaan mashruuc loogu talagalay in ka badan 1500 oo qof oo deegaanadaasi laga hirgelinayo isugu jira daawooyin iyo indhafiiqis. dad gaadhay 1500 oo qof ayaa ka faa'iideysan doona mashruuc indhafiiqis iyo daaweyn isugu jira oo lacag la'aan ah waxaana maanta laga daafuray magaalada tan Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Cusbitaalkan Manhal ayaa mashruucaasi ka fulin doona magaalooyinka Laascaanood, Buuhoodle iyo Ceerigaabo. Mashruucan ayaa waxa ka faa'iideysanaya bukaanno ka kala imaanaya magaalooyinkaasi deegaanada hoos yimaada kuwaas oo heli doona baaritaano iyo daaweyn lacag la'aan ah. hawshan indhafiiqista iyo daaweynta lacag la'aanta ayaa waxa si wada jir ah u fulinaya cusbitaalka Manhal waxaana dhanka dhaqaalaha ka caawinaya hay'adda MSF. Mas'uuliyiinta cusbitaalkaasi iyo isuduwa wasaaradda caafimaadka iyo mas'uuliyiin kale oo ka qayb galay kulankaasi lagu daafurayay ayaa sheegay inay muhiim u tahay dadka aan awoodin inay iska bixiyaan dhanka dhaqaalaha qaliinada dhanka indhaha iyo daaweynta. waana markii ugu horeysay mashruuc caynkan oo kala laga fuliyo gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn. hay'adda Manhal waxa markaa maalgelinta leh hay'adda MSF Holland oo runtii macni waxa weeye hay'adii markaa proposalka iyo ajendaha loo gudbiyay isla markaana aqbashay mashruucani hadii Ilaahay idmo waxa laga qabanayaa oo ka faa'iideysan doona dad ku nool 3 gobol kuwaas oo kala ah Sool, Sanaag iyo Buuhoodle. tirada guud ee dadka ka faa'iideysan doona waxa weeye 1500 oo qof. wali mashruuc sida indhaqalida oo macni xaj magaali macni gobolada bariga oo muu soo bixin muddada uu soconaya hadii la haydmo waa 2 bilood 600 tirada wuxuu ka helayaa 610 qof isagaana runtii xarun u noqonaya hadii la haydmo waxa weeye 400 oo ah eegid iyo daweyn indhaha loo eegayo iyo 210 qof oo qaliina 400 oo qof oo loo daweynayo loona eegayo waxa weeye loona eegayo indhaha iyo 190 qof oo ah qaliin. Buuhoodle waa 100 qof oo qaliina iyo 200 oo ah eegid iyo daaweyn indhaha loo eegayo. totalka guud ee dadka ka faa'iideysanaya mashruucan sidaan hore u sheegnay waxa weeye 1500. waa kulan aan rabnay inaan ku daafurno barnaamijkaas weyn ama mashruucaas ah indhafiiqista oo ah mashruuci ugu weynaa ee deegaanadeena iyo gobolka Sanaag iyo Sool iyo Buuhoodle laga fuliyo. hay'adda MSF oo donor ah oo soo marisay mashruuceeda wasaaradda caafimaadka iyo Manhal Hospitaliska cusbitaalada Manhal oo iyagu ah fuliyaasha barnaamijkaas. ma aan difaraynaa sidii aynu wakiil uga wada noqon lahayn inaynu gaarsiino walaalaheena cadiban ee ka cadiban 6 laxaada Ilaahay inoogu mana sheegto ta ugu qaalisan ay wadaan maalgelisay hay'adda MSF ayna fulinayso Manhal Health Hospital Organizations dad meel aada oo indhaha meel u aada laakiin waxa jira dad fara badan oo indhaha ka cabanaya qaarkood waxba ka arkeen qaarkoodna waxba aysan ka arkayn oo dhul magaalada ka baxsana magaalada dhexdeedaba joogaan waligood dhakhtarna la geyn helina awoodna u helin uu ku tago. sidaa daraadeed mashruucan aad iyo aad baan u mahadinaynaa waana soo dhaweynaynaa. muxuu ahaa waajibka bulsho ahaan ina saarana waxay tahay inaynu bulshada wixii aynu kari karno qof waliba intii uu awoodo uu gaarsiiyo meelaha ama goobaha la sheegay ee Laascaanood iyo Buuhoodle iyo Ceerigaabo iyo qof waliba intii uu awoodo in la gaarsiiyo. alxamdulillah waa taas qaaliya marka 3 gobol ay heleen baan oran karaa waxa la markii hore si awal arinta laga faa'iideysto idinkana waxa ugu baraarujinayaa war wacyigelinta asageysaan meediyaha ba maanta wacyigelin ah ummadana sidee u soo kala horeyso cadaaladaha lagu kala qaado arintaas waa arinka hadduu arinku cadaalad helo 3 gobol baa isku raranay hal xumaan maayaan kullu xagga Buuhoodle ka imido وانا كنا قريايو
wacyigelin tanna waa wacyigelin takana waxa weeye sida cuqaasha ka mid ah guurta cuqaasha ka mid ah waxa weeye waxay haysaa shaqada cuqaasha haysaa waan dirayaa helaysaa wadada iibsato marka aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa mashruucaas waana muxuu ahaa la shaqeynaynaa waxa la waxay nooga baahdaan ka caafimaad ahaan ka human resource ahaan xagga shaqaalaha dhammaan waa la shaqeynaynaa indhaha in qalliin bilaash laga fulinayo taasoo aynu aad ugu baahannahay qalliinka bilaashka because dadku waxay u badan yihiin dad dan yara oo aan awoodi karin intii ay transportation-ka ku bixin lahaayeen iyo awoodoodu siinay intii ay isku daweyn lahaayeen labadaba taa waxaan mahad ilaahay baynu mahad ugu naqaynaa ilaahay inoo fududeeyay inaynu helo maanta qalliin Faarax Maxamuud Dubaad goobjoog Laascaanood